arrimaha qoyska ee Puntland Marwo Zahro Cabdi Xirsi Marwo soo dhawow كوزير أهان ولد وزير وزارة هوانك يا أرمها قويسكا بنتلان سيدي أياد ماركتي قيب وغن نقطان بليتا قبدها كقيبقالك لنا على السياسة حرير نوعي أياد إذن كبحية إذن كإيو هوانك كلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام يا بنان سيدي قارهان تطلع يلي دم يرضى وبحين السوفرية وزارة هوانك iyo horumarinta qoyska shaqadeeda ayaa waxay tahay inay gabdhaha dhiirigeliso gabdhaha soo saarto gabdhaha horumariso waa shaqadeena anaga sida hadda aniga hadda aan runtii xitaa soo afurin si barnaamijka uga qayb qaato baan mar walba anaga tabarbeyn u bixinaa horumarinta gabdhaheena reer ubaxa ah hooyooyinka caruurta marka qayb weyn ka qaadanaa barnaamijyo badan waa wadnaa hadeerto ayaan dhawanaga qabanay shirweynaha weynaa ee wadatashiga haweenka Puntland oo aan ka raadinayno inaan ka dhaxelno dumarka si horumariyo dumarkooda kale iyo talooyin fiican oo lagu horumariyo haweenka gaar ahaan sida siyaasadda uga qayb qaadanaya marka anaga tabar aad u badan ku bixina waana ka qayb qaadanaa mar walba sida hadda uga qayb qaadanay aan banaanka imaadaan istusaan bulshada la hadlaan diyaar baan ayaa wasiir idinka dhexeeya haweenka kale ee ku jira siyaasadda ee wasiirada tusaale ahaan oo kale sucaad oo dhinacaaga fadhida iyo adiga xiriir noocee ay idinka dhexeeya marka ay timaado xiriir fiican baa naga dhexeeya aniga sucaad gabdho walaalaan waa nahay gabdho wada shaqeeya waa nahay xiriir fiican baa naga dhexeeya sucaad bay ag fadhida ka marqaad furi doontaa hadhow haddii ilaahay idmo dee 4 gabdhood baan nahay iyo gabadheena ku jirta golaha baarlamaanka marka afarteenaas shanteenaas gabdhood waa iskaashanaa culideena meel baa isku geynaa marka xiriir fiican baa naga dhexeeya si fiican baa wada shaqeynaa wasiir sucaad ayaan rabaa inaan soo dhaweeyo wasiir sucaad waxaa kuu suurta gashay in markii labaad lagaa dhex arko aad ka mid noqoto xukuumadda Puntland si xiriira markii labaad inaad ka mid noqoto waxaanu ognahay sida ay u adag tahay haweenkeena iyo ka qaybgalka siyaasadda marka ay noqoto sidee ayay arrintaasi kuugu hirgashay sidee ula tacaamusha oo u maaraysaa habka ku salaysan ee qabiilka marka gabadhu ay doonayso inay siyaasadda ka soo noqoto arrintaas waxaa rabnaa wax la taaban karo oo gabdhaha caawa dhalinyarada ah ee doonaya inay heerkaas gaaraan cashar ay ka bartaan bismillah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب ورئيس وحسلام يا كسب قرياش مدرسة سجوني قبلها وزير التوين وسارته هرمر التوين في أربعة قيسكا قبلها كانوا أقنياء كنا يو حوي ومن ليدرسكا يو كسب قرياش قبلها أنا هلك هو موضوع فوق الدماء ينقول تشوجا iyo ragga championka ah oo iyana nagala soo qayb galay oo haweenka taageero laftigooda iyadana mahad celin gaaran u sameynayna wiilasha nala jooga qoobtan iyo abaabulayaasha ururka dhalinyarada oo iyaguna barnaamijka soo qaban qaadiyay oo ay ka siman yihiin wiilal gabdhaba su-aasha aad weydiisay haddii aan kusoo laabto waxay ahayd long journey ama sudcaan dheer oo aan waxa weeye bridgeka jebiyo bridgeka ah dhalinyaradu waxaa weeye hogaamiyaasha bulida taasoo ah inta badan waxyaabo lagu saylan gareeyo ama dhinaca loogu riixo dhalinyarada hogaanka doonaysa inay maaragtay saaxadda siyaasadda kusoo biirto sidaynu ka warqabno ama theoretically ama maaragtay fikir ahaan leadershipku waxaa weeye waa u dhalasho qof kasta oo waxa weeye ama dhalinyaro ha ahaado ama ciyaal ha ahaado ama qof weyn ha ahaado horta leadership sideedaba waxa weeye wax la iska barto waa theory wuu jiraa la barto laakiinse waa wax loo dhasho marka waxaan ugu talagalay maadaama anigu hamigayga ama leadershipkayga mustaqbalkayga waxa weeye ilaa markaan yaraa ilaa markaan soo weynaaday mar walba maaragtay hamigaas igu jiray one day inaan maaragtay dhinaca hogaanka ama hormuudka ummadda aan noqon doono in dhalinyaranimadii aan jaanis ku helay inaan mar wasiir noqdo xukuumadda hore aan kusoo biiro oo waxa weeye 2017kii shafalkii u dambeysay ee dowladdii Cabdiweli Maxamed Cali Gaas lagu soo daray kabacdi markaas waxay iska ahayd dowladdu waqti yarna wuu ka dhinnaa anigana waxay ahayd platform baan helay aan maaragtay kusoo siyaasaddii iyo arrimihii hogaanka iyo waxqabadka ummaddaba aan jaanis u helo inaan muddadii sanadkii barkii dowladda aan la soo shaqeeyay platform fiican bay ii noqotay
dadaalkii waxa weeye tala saarashada ilaahay iyo daacadnimada iyo waxa weeye qaabkan ku shaqaynayeen wax ilaahay loogu shukriyo bay ahayd. Secondly waxa weeye waxqabadkii aan muujiyey baa horta iyadana ummadii maaragtay dadkii ama aan ku kasbadayo cidna inta aan joogay kolley dhalinyarada inta badan waa isnaqaanaayo waxa weeye dadka waxaan ahaa maaragtay taageerada fiican leh. taana waxaan ku kasbaday qaabka aan u shaqaynayay oo muddadii yaradaan dowladda ku jiray lillahi alxamdi. markii dambe oo dowladdan xilligii doorashada la galay oo dowladda waqtigeedii sii dhammaanayeyna waxaan ahaa oo aan rabo hadda inaan uga faa'iideeyo waxaa jiray sideedaba waxa weeye advocacy baa loo waday oo marka hore dhalinyarada dhinac ah inay dhalinyaro badan inoo soo gasho baarlamanka oo ah beyska dowladnimadeena maaragtay baarlamentariyanka ama qaabka lagu soo doorto. markii labaadna waxa weeye markii baarlamanka lasoo doortayna waxa weeye madaxweynayaashii iyo golihii xukuumadda iyo process isku xigxiga bay ahayd qaabka maaragtay doorashada ama dowladnimada lagu soo dhisay. marka tii baarlamanka anigu ma raadsan baarlaman laakiinse waxaan ku dadaalay inaan door muhiima ka qaato qaabka maaragtay baarlamanka ama dadka soo gelaya ama waxa weeye xildhibaanadii lasoo filayay cidda doonaan ha ahaadaan. waxaan waxa weeye qabiilkan 4.5ka iyo waxa weeye qaabka maaragtay goboleys wiilo ku salaysan yahay laakiin by default baa waxaa loogu bedelaa inuu yahay 4.5 laakiinse taas anigu iskuma soo koobin hal xaafad iyo hal reer waxa weeye inaan angelis badan oo dadka asxaabtaydii dad iswada yaqaanaynu nahay qof Puntland joogtay oo muddana kasoo shaqaynaysay baan ahaa network badanna leh inaan door kasta maaragtay dadkii xildhibaanada raadinayay inaan angelis badan oo waxa weeye dad badan la kaambeyn gareeyey dad badan soo baxeen waxa weeye taasi waxay ahayd number 1 waxa weeye waxyaabahan oran karo successkayga qayb ka soo ahayd. baarlamaanka markaan wax ka soo dhisnay haddana waxa weeye markii dambe waxaa la galay doorashadii madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyadana doorashooyinkaana rool baan ka soo qaatay iyadana network baan ka samaystay waxa weeye xildhibaanada aan markii hore garanayay iyo qaabkii maaragtay markii dambe aan madaxdii laftigeeda iyo hogaankii aan doorka uga qaatay iyadana in maaragtay dadka soo baxayay oo ku guuleysanayna iyadana falilahi alxamdi. markii dambena isla waxa weeye processku bay ku noqonayso markii dambena inaan anigu soo noqdona waxaa sahlay waxa weeye networkaygu baan oran karaa still oo waxa weeye xildhibaanadii aan markii hore maaragtay qayb ka soo ahaa la shaqayntoodii iyo maaragtay campaignkoodii madaxdii sidoo kale markii dambena in anigii maaragtay positionkii aan kusoo noqdo. marka waxa weeye fursad baa jirtay waxaa jirtay caqabad inta badan gabdhaha haysatay oo dhinaca maaragtay baarlamanka soo fulidiisa ama xukuumaddaba ha ahaatay dumar madaxweyneyaana maynaan lahayn laakiinse labadaa stage caqabad badan bay dumarku kala kulmeen. haddii ay su-aashu dambayso waa beesheeda laakiin haddii kale inaan ku dari kara maya caqabadaha ayaa mahadsantihiin. marka intaasaan waxa weeye tan kale dib baan u dhiganaya marka borsaska isku xidhan bay ahayd insha allah. horta haddaan kaaga waramo Somali Women Leaders Network waxaa asaasay 7 gabdhood oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah. dhalinyaro haddaa dhahayno mogtahay badanaa haddaa wax yar in la kaftamo badanaa hadday dumarka gaaraan 30 laguma tiriyo dhalinyaro baynama ragga 50 markay gaaraan istil dhalinyaro ay marka anagoo hal gabaroo 40 jira naguma jirto horta kulligeen under 40 aan nahay. gabdho badanaa ku jira even under 30 gabdhaha ku jira. marka waxaa iskugu imaanay yani kulligeen waxaa isku naqaan horta Facebook dadka waxay isticmaalaan badanaa shukaansi ama maxaa la madadaalo iyo xaraabeesi laakiin anaga waxaa isticmaalaynay Facebook inaan isku barano qof walba hankiisa muxuu yahay muxuu ku fiican yahay muhiimada ilaahay siiyay maxay tahay dadka way kala duwan yihiin muhiimada ilaahay siiyay. marka anaga waxaa iska xil saarnay gabdhaha Soomaaliyeed aad dareemayna inuu dhaxeeyo gaab inay wada xiriir fiican leeyeen badankood ama iska warqabin. waxaa dhici karta maanta aniga inay jirto Faadimo oo saxafiyad ah aniga qoraa ah inaan maanta is aqoonin labadeena laakiin markii ay yeelaan network marka u baahdo gabar saxafiyad ina Faadimo yeelan karo marka u baahdo gabar dhakhtarada aqaano ma garato isku xir network badan waxaa lagu isku xir soo maaha waa shabakad. marka waxaa Somali Women Leaders January fikradda soo bilaabatay waxaana soo shaac bixinay anaga ama dadka la wadaagnay March
fikraddan waxay ku asaasnahay inaan la sameeyo wada shaqayn annaga dumarka dhexdooda ah annagoo ka fiirinayno hiigsiga fog insha allah tacaala annaga kuma ekin maanta iyo beri dambe annaga waxaa rabnaa insha allah tacaala inaan gaarno haweyn oo ah visionkeena wuxuu ku salaysan yahay inaan xambaarno codka haweenka Soomaaliyeed not only Puntland Soomaaliyeed maanta haddaa federaalka ka dhici doonto insha allah tacaala intikhabaad ama doorashooyin 2 sano kadib waxaa rabnaa gabdhaha Puntland laga dooranayo in anaga soo saarno intay soo saari lahaayeen oday dhaqameedkiina anaga ka gadnay gabadhaaseeto ma garatay tusaale ahaan yacni haddii gabar ee wasaarad ay noqonayso in anaga ku riixno wasaaradda ay ku habboon tahay aan ka dhaadhicino aan kaalmeyno hadday gabar u baahato maanta inaan la baro maalan gabara shal na soo wacday oo dhehayso waxaa rabaa inaa lagu xiro food industryga dadka ka shaqeeya aan u baahanaa inaa barto isla markaana inoo imaado saa u barno waa isku xir weeyaan haba isku xir agaasima deeqo soo dhowo ayaan mar kale ku leeyahay aadna waa kuugu mahad celinayaa waxaan rabaa arrinta dhallinyarada toddobaadkan waxaa lagu jiraa toddobaadkii maaragtay loo dabaaldegayay oo la xusayay dhallinyaradii Soomaaliyeed ee SYL haddii xilligaas isaga ah SYL ay hirgeliyeen arrinta sababtay ilaa maanta inay xusuusteena ka go'i waayaan iyagoo tiro ahaan aad u yaraa fursadaha ay haysteen marka loo eego kuwa maanta ay aad u yaraayeen maxaa laga filayaa dhallinyarada Soomaaliyeed ee maanta gaar ahaan kuwa Puntland marka ay timaado guud ahaan isbedelka dalka iyo gaar ahaan fursadaha ka qaybgalka siyaasadda. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. SYL waxay ahaayeen 13 qof oo dhalinyaro ah markaas fikir inay dalka ka saaraan gumaysigii ama ka saaraan ka dhidhiyaan maysa haysatay nas noo sheegtay faadumo resource-ka maanta haysano laakiin waxay haysteen isku xirnaansho waxay haysteen aga maysa haysan badan waxay haysteen isku xirnaansho waxaan ku jirin ama aysan ayaga dhan ka ahayn dad yacni waxay ahayn dad hadaf leh oo go-aan leh oo meesha u socdaan garanaya markaan ka soo haro taas waxaa ku jira gabadheeda timiro la dhaho oo dhawaantaan dhimatay 2006 bay dhimatay timnaco kaash waxaa kale ku jira xawataako markasta gabar iyo wiil waxa weeyaan oo dhalinyaro ah way isu baahan yihiin laakiin fursad badan bay markaa iyagu maysa haysan laakiin kolle waxay ka dhidhiyeen oo markaa arkeen ama doorka ku yeesheen inay noqdaan dadka maanta waxaynu harsanayno oo ah xornimada dhaliyey iyagoo resource-ka maanta haysan marka haddaan su-aasha usoo noqono inay fahmi weydiisa waxay tahay gabdhaha maanta jooga ama dhalinyarada guud ahaanba waxaa la rabaa inay noqdaan kuwii 13kii SYL xilligaa joogay inagoo haysana waxas iyagoo haysan inuu dalka bedelo horumar fiican sameyno isku xirnaano marka waxay su-aashii la muuqata inay tahay jawaabtoodu haa waa noqon karnaa haddaynu dadaalno isku xirnaano aqoontii baan haysanaa xirfadii baan haysanaa janskii baan haysanaa meedii baan haysanaa wax kastoo fursada haysa marka waxay la tahay inay noqon karno haa waa noqon karnaa dad dalka bedela oo u bedela una horseeda horumarka dalka mahadsanid agaasima deeqo nasro marka aan kasoo laabto insha allah idinka ayaan fursad idin siin doonaa qof iyo labo ciddii su-aala nagu soo daraysa nasro waa aasaasaha iyo sidoo kale madaxa Women in Media Initiative hal abuurka gabdhaha warbaahinta nasro waxaad nooga warantaa marka ay timaado meediyaha ama saxaafaddu waa cudud weyn oo aan la dheelsan karin arrinta gabdhaha gaar ahaan waa usoo laaban doonaa laakiin si guud saxaafaddu door intee leeg ayay ku leedahay in dhallinyarada iyo haweenka lagu dhiirigeliyo oo lagu baritaaro inay qeyb ka noqdaan sistamka dalka iyo sidoo kale waxaad ii raacisaa bal heerkee ka joognaa saxaafadeenu maanta arrintaas inay ka qayb qaateen. Assalaamu calaykum waraxmatullah. intaana su-aashaa ka jawaabin waxaan jeclahay inaan dhammaan dhallinyarada Soomaaliyeed rag iyo dumar baan ugu hambaliyeeyo maalinta qiimaha badan 15 May oo ah maalin la xuso dadkii soo halgamay oo waliba dhalinyaro badnaa waxaan rabaa inaan in yar ku darsado hadalkii agaasimaha hadda ka horba waxaan dhageystay gabay ma xasuusto qofkii tirinayay laakiin wuxuu ka hadlayay gabar Soomaaliyeed oo dhalinyarada SYL markii ay dagaalamayeen oo dalka u dagaalamayeen dahabkeeda u iibin jirtay si qarsoodi ah oo cuntada markay jeelasha ku jireen si qarsoodi ugu geyn jirtay
oo yacni wax kasta la garab taagneyd ayuu yidhi baan maalinta dambe waxaan arkay iyadoo waxa ay ku nooshahay duruuf aad u adag oo meel silicsan degan markaasaan waxaan isweydiiyey buu yidhi yacni gabayga qiiraa ka keentay markii gabayga baan magaciisa aanan xasuusan waxaan isbarbar dhigay buu yidhi gabadhaas aan u soo joogay sida ay SYL u garab taagneyd iyo maanta dayaca ay ku nooshahay iyo xusid la-aanta aan la xusin gabdhihii waxa weeyaan ku jiray SYL haweenku markaa halkaa waxay kuu muujinaysaa inay door aad u muhiima ay ku lahaayeen xornimadii loo dirirayay oo ah midda maanta aynu xusayno laakiin in badan raggoon baa la xasuustaa laakiin gabdhaha lama xasuusto haddaan u soo noqdo su-aashaas saxaafadda tusaale yar haddaan idiin soo qaato intaan u gelin doorkooda hadda barnaamijkan live baynu ku jirnaa kaamirooyin badan baana hor yaalla kuwaa sawirayna ka qaadaya simbal doorkooda waa cadyahay laakiin door intaa ka weyn oo ka ballaaran ayay ku leeyihiin maxaa la yidhaahdaayey arrimaha bulshada saxaafaddu caadiyan waxay ka shaqeeyaan 3 qaybood bay ka shaqeeyaan qayb afraadna waa lagu daraayo waxa weeyaan macquul ah waxay ka shaqeeyaan saxaafaddu inay dadka wargeliyaan oo ah door muhiima oo ah in ay dadka wixii jiray ay u sheegaan haweenka waan usoo noqon doonaa waxay leeyihiin door waxbarid oo ah in ay dadka baraan wax aanay dadku horay u ogeyn tusaale yar haddaan idiin soo qaato iyadoo aan la aqoon cudurka la yidhaahdo oo fureenka markii qof saxafihii uu war saxan ka sheego waxay noqonaysaa inuu dadka waxbaray iyo wixii la midka ah saxaafaddu waxay sameeyaan oo doorarkooda ka mid ah inay dadka madadaaliyaan oo waxyaabaha maaragtay bulshadu ay madadaalada ay ku qaadato isboortigu ka mid yahayo heesaha iyo fanku ka mid yahayo ay u soo gudbiyaan haddaba door kalaa jira oo ay haweenku soo hoosgelayaan doorka ay haweenku soo hoosgelayaan waxa weeyaan saxaafaddu waa qareemayaal waxay u qareemaan cid kasta oo u baahan in loo qareemo cid kasta oo aan haysan codkii ay ku hadli lahaayeen yacni sida ay u hadli lahaayeen aan haysan cid kasta oo ay adag tahay in intay media yimaadaan ay ka hadlaan oo ay waxa ay tabanayaan sheegtaan dadka nugul waxaa lagu tiriyaa inta badan waxaa la yidhahdaa haweenka maaragtay ku jira dadka ay saxaafaddu u qareemaan haweenka ka mid ah haweenku waa soo hoosgelayaan marka doorka uu qareemidda marka la yidhaahdo haddii ay noqoto arrin horumarneed oo gabadhu ay gaadho haddii ay noqoto arrimaha caqabadahayo gabdhaha haysta ama haweenka haysta haddii ay noqoto arrimaha tacadiyada ah oo haweenka lagula kacayo dhibaatooyinka jira haddii ay noqoto xagga siyaasadda yacni saxaafaddu doorkeedu waa in ay maxaa la yidhaahdaayey soo saaraan barnaamijyo ka sameeyaan waraystaan u tagaan yacni soo saaraan gabadhu waxa saxda ay tahay ma rabno wax iska buunbuunan saxaafaddu marna buunbuunan ma gasho laakiin waxay soo hoosgelaysaa doorka ay ku leeyihiin haweenku inay maaragtay ay saxaafaddu u qareemaan doorka u qareemidda ah oo ah inay qof kasta saxaafaddu u qareemaan laakiin haweenku ay ka mid yihiin dadka maaragtay sida tooska ah ay saxaafaddu ugu qareemayso faadimo tobankii SYL gudoomiye SYL xaaj maxamed xuseen waa caruurteeda awood taas la socda marka nasiiba ani markasta nacam waxaan dareemaa waxaan xoogaa emotional noqdaa inaan qayb ka ahayn maanta xornimada Soomaaliyeed marka taas la socda caruurteeda awoogooda xaaj maxamed xuseen xaamid oo ahaa gudoomiye SYL way mahadsan tahay wasiir Sahra gabdhaha dhalinyarada ee barnaamijka nagala soo qayb galay ayaan fursad siinayaa markaan haddii ay jiraan wax su'aalaha meeshiina ayaan idinku keenaynaa mikrofoonka farxiyo degan ayaan soo dhaweynayaa idinkuna fadlan waxaan rabaa inaad dareentaan inaad barnaamijka qayb ka tihiin inaad wix allaale iyo wixii su'aalo oo idinka guuxaya aad fursad u haysataan inaad soo weydiisaan panelka marka lahaanshiyaha barnaamijka inaad dareentaan ayaan rajaynayaa farxiyo idin weydiiyo su'aal runtii maanta waxaad matalaysaan caawa bulshada qaybaheedii kala duwan shaqo weyn ayaad u haysaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha oo boosas waaweyn baa noo joogtaan maanta haddaa wax bedeli kartaan wax weyn baa bedeli kartaan su'aashaan rabaa inaan idin weydiiyo
oo wax bartay oo xirfadii leh aqoontii leh doonaya inay siyaasadda qayb ka noqdaan gabdhaha noocaas oo kaleeto sidee ayaa doonaysaan inaad maxaa la yidhaahdaa u saboot garaysaan oo ay meesha aad joogtaan ay u yimaadaan haddii ay noqoto inaad saboot garayn kadhaan qaab nooc ayaad ku saboot garayn kadhaan markaas waana mahadsantihiin haye wasiir zahra su-aashii ayna weydiisay farxiyo horta gabadha markay han leedahay ee siyaasadda ay rabto ayada sboortiga koowaad waa ayada nafteeda in ayada sboort garayso aniga waxaan aaminsanahay gabadha markay han leedahay meesha ay rabto inay soo taabanayso dabcan gabadha waxay u baahan tahay qofay ku dayato tusaale dad u noqda dad ay tiigsato waa run annagana teeda kale haddii annaga wasaaradda nahay wasaaradda haweenka dabcan waan gabdhaha waa taageernaa gabdhaha xoogaa waan dhabarka waa ka riixnaa si hore ugu socoto shaqadayna way tahay laakiin aniga waxaan aaminsanahay gabadha marka hore naftarkeeda hankeeda inuu sareeyo ayna ka go'an tahay waxaa rabto waa inay kaa go'an tahay hadda markii ay dhahayso wasiir Sucaad leadershipku waa u dhalasho ana xoogaa taa ma aaminsani leadershipku waa ku dayasho qof kasta bini'aadamka sidiisa wuxuu u nugul yahay inuu wax wanaagsan ku daydo annaga haddii aan gabdho badan helno oo hormuud u noqdo siyaasadda oo siyaasadda ka qayb qaataan dabcan waxaan hubaa gabdho badan oo kale inay soo baxayaan marka haddii annaga tusaale fiican aan noqono oo gabdho kale aan soo baxaan oo siyaasadda ay soo galaan ku guulaystaan gabdhihii kale ku dayanaa marka waa la isku sii dhiibaa siyaasadda waxa la isku sii dhiibo waa qorudhiig oo kale oo la iskuna daydo marka gabdhaha waa inay hankeedu sareeyo oo hankeeda hoof kor noqdo si ay u soo taabato meesha ay rabto wasiiradan kuu dhiibayaa wasiir Sucaad active ay noqdaan oo maxay ahayd wixii iyagu maaragtay iyaga ka yimaado iyagu raadiyaan oo iyagu maaragtay platformka iskeenaan markaas waxa weeye cid celin kartaa ma jirto taasaan aaminsanahay seen fikir baan ka qabnaa aan marka intaasaan uga baxay haddii ay heli lahayd gacan qabasho rasmi ah oo uga timaada waxa weeyaan gabdhaha siyaasadda kaga horeeyay waxaan u malaynayaa inay u fududaan lahayd oo ay waddo sahlan u noqon lahayd in ay maxaa la yiraahdaa ay gaarto meesha waa sax qofku han hadduu leeyahay hanku isagu ka go'a qofku markuu doonayo waxa inuu sameeyo laakiin haweenkeena siyaasadda noogu jira aanba dhaliilo wasiirada inagala joogaane waxa weeyaan waxaan anigu isleeyahay in badan oo ka mida gabdhaha waa la ilaawaa qofku markuu xil qabto waxa weeyaan gabdhihii dib looma soo eego wasaaradda haweenka oo kaleeto waa shaqadeedii inay gabdhaha dhiiri geliso inay maxaa la yidhahdaa ay socoto laakiin weli annagu waxaan isleenahay gabdhaha dhallinyarada ahi waxay u baahan yihiin door muuqda oo ay maaragtahay meel ay kusoo hirtaan tusaale ahaan markay gabadhu rabto yaan kala tashadaa waxa aan rabo inaan sameeyo waa inay hesho qof maaragtay u furfuran ama wasiiradii ama gabdhihii siyaasadda kaga horreeya waa inay u furan yihiin si toos ah in ay dhiirigeliyaan in ay soo saaraan inay tala siiyaan wasiirada iyo dadka siyaasadda noogu jiraan waxaan oran lahaa dee annagana matashaane waxa weeyaan gabdhaha meel ilaah ku ilaawanina waxaa maleynaa mushkilada ugu weyn oo gabdhaha haysata inuu dadaalkooda muuqanin inay tahay horta konseptiga gabdhaha ee ayaga iska haystaan gabdhaha badanaa waxay aaminsan yihiin inay tahay madar rageed siyaasadda marka insha allah waxaa rajeynayaa in taas horta gabdhaha ay bedelaan ee aaminaan inay xaq u leeyihiin maanta inay u tartamaan siyaasadda ma garatay tan labaad waxa weye gabdhaha badanaa waxay dhahaan gabdhaha isma taageeraan adiga markaa xildhibaanad noqonaysa ama wasiirad noqonaysa ummadan dhana u noqonaysaa gabdho keliya uma noqonaysid maxaa iskugu koobaysaa gabdho maanta hadduu wiil issoo sharaxo ama siyaasad raadinayo ragga keliya ma isku koobaa dumarkay u imaadaan qaaraanay wareystaan ay weydiistaan waxay u tagaan beelihii meel kastay galaan way dadaalaan wayna dhaqaaqaan gabdhaha badanaa inta u qareema arrimaha haweenka mooyaane inta kaleeto badanaa way ka cagajiidaan waxay u moodaa inay tahay arrin qalad ah amaba aaminsanaba inay tahay wax oo islaamkii diintii dhaqankii aqbali karaan laakiinse haddana hanki way leeyihiin haddana wax unbaa ka dhex guuxaya oo u diidaya inay miiska soo saaraan waxaa aaminsanahay maanta gabdhaha soomaaliyeed haddii dhabkata ay aaminaan inay maanta ay u siman yihiin siyaasadda ragga iyo dumarkaba ya oo iska dhaafaan afkaarta kaleeto oo dhahayaan gabdho ma istaageeraan iyo dumar way isqabsadaan iyo fikradahii ay xataa iska dhaadhiciyaan dhexdooda ay ku sheekaystaan waa inay meel iska soo dhigaan ma garatay marka insha allah tacaala waxaa u maleynayaa maanta laga bilaabo inaa haddana qaabkii loo dagaalami jiray wuu ka duwan yahay qaabkaneeto
xataa badanaa dadkii naga horeeyey way ku mahadsan yihiin dadaalkooda laakiin badanaa waxay u doodi jireen FGM iyo xuquuq iyo waxaas ka hadli jireen iyo siyaasad anaga meel kastaa ka maqanahay anaga siyaasad kaliya kama maqnin anaga waxaa ka maqanahay businesska waxaa ka maqanahay bahda waxbarashada waxaa ka maqanahay leadership nimada oo qaybta oo maxaa la yidhaha saxaafadda hadda ma umaleynay map oo kaleeto se u jirtay ilaa hadda nimana iska haystay gabadha badanaa waxaa la ogolyahay xog hayeen inay noqoto ama ina fabitaali waxaa umaleynaya gabdhaha xataa ina meesha uga baxeen si ayaga u noqdaan madax ma garatay marka mar walba waxaa u baahana in aad yani dumarka inay meel kasta ay joogaan maaha siyaasadda keliya xataa kuwa hay-adaha jooga badanaa waxaa arkaysaa gabdhaha inay ayagoo meel fiican rabeen inay aada inay raggi oo tacliin ahaan xataa ayaga ay ka daraja sareeyaan inay haweenka ayaga hoos tagaan leadershipnimada ama hogaanka anaga puntland marka aan ka muuqano bulshada aan ka muuqanayna siyaasadda marka bulshada aan ka muuqano first kadib qaabka hadda loo doodayana oo haweenka xaqooda loogu doodayana waa inuu isbedel ka imaadaa marka asaasa insha allah taa umaleynaa waxaana ka bilaaba gabdhahan ardayda ah gabar walbo faculty ee barato leader ha ka noqoto ya gabdhaha oo bartaan looga gabdhaha bartaan shariicada la barana diraasaad islaamiya la barana ugu dambeystii qof oo matal 40 nawawiya soo bartaa la hofaysanaya see ku dhacday gabdhooda haddii aan helna horta maalin kasta nin wadaad muxuu noo hor imaan arrimaha haweenka noogala hadlaa gabdhaha oo maxaa la yidhahdaa dhakhaatiirta waxaa arkaysaa gabadh dhakhtar iyadoo joogto oo qofka markuu soo galo isla marka ninkii umaleyna dhakhtarka ninka waxaa dhici karta neers yahay maxaa dhacay adiga geesinoo yeelo kalsooni ku yeel gabadha walaashaa weydii dhakhtaradda adi miya ayadoo neers haday u qoranta xataa iskenda jir ha abay dhakhtaradda adiga miya ku dheh ya niyadda u dhis ya marka insha allah tacaala saasaan rajeynaya yani meel walba inaan ka muuqano bulshada meel walba markaan ka muuqano aan siyaasadda ka muuqanayna annaga hoos ha laga soo bilaabo hoosaan ka maqanahay dugsiyaasha qur-aanka maalinta aragna gabdho oo dugsi qur-aan furanayn aan gabdhaheenu ku aamini karno maalinta si tog hogaaminta meesha u sareysaa gaarayna laakiin inta dugsiga qur-aan macalin aa u geenayna ilmaheena oo gabdhaha lagu aaminayn xaafidaad qur-aanka mise gabdhaha qur-aan xaafidaad man wajiraan miya meeqa xaafidaad hadda inta fadhiyaan ya in badan see ku dhacda idinka bilaa arday ina ahaatiin dugsiyaal furta ya hogaaminta meeshaase ka bilaabataa ya marka insha allah tacaala meel walba hogaamiyaha laga noqdo kadib siyaasadda way sahlan tahay madaxweyne iska dhaafee min madaxweyne ilaa maxaa ilaa ay ka dhulka masaxa gabdhaha wada noqonayna ya insha allahu tacaala way mahadsan tahay doctorayso Sumaya Shoole agaasime deeqa ayaan mar kale xaggeeda u laaban doonaa agaasime marka laga yimaado guud ahaan siyaasadda dhalinyaradu ay wadaagaan waxaan dareemaynaa gabdhaha dhalinyarada ah dhalinyaranimada waxa u dheer haweenimo oo iyadoo guud ahaan dhalinyaradu aad mooday inay ka maqan yihiin sektorkii hogaaminta haddana iyaga waxa u wehelisaa arrintii dumarnimada maxaa qorshe ah oo waxa weeyaan gaar ah oo wasaaraddeena dhalinyaradu ay ku wajahaysaa arrintaas ama uga qorshaysan dhalinyarada haweenka ah haweenka maqan waa si baan oo dhan waxaan emotional waa jecel dumarka haweenka laga hadlo haddaan u soo noqdo su-aasha weydiisan Faadimo waxaa jira youth policy ee samaysa wasaaraddu qaybna ka ahayeen dhalinyarada marka dhalinyarada maqashid erayga dhalinyarada maqashid waxa maskaxda ku soo dhacaya waa niman dumarka ma qabo waxa maqan yihiin dhalinyaro rag baa maqlaysa rag baa dareemaysa rag jiro oo dumarku aysan ku jirin baa moodaysaaba markaan su-aasha u soo noqdo youth policy baanu samaynay iyadoo ay qayb ka tahay dhalinyarada baahiyaha dhalinyarada baa la soo urushay gabar iyo wiil mid kasta baahida dhalinyarada waxa lagu dari karo lagu dabaqay siyaasaddan iyaga ka timi isla markaas labada gol laga ansixiyay waxaa ku jira compound genderka compoundkaasi wuxuu ka hadlayaa waxyaabo badan fursado ah oo gabdhaha la siin karo hadday tahay shaqadii hadday tahay caafimaadkii hadday tahay fursadihii kaleeto businesskii hadday tahay networkyadii wax walba uu ka hadlayaa laakiin waxaa moodaa puntland inay siyaasadahoodu aysan inta badan bashaqayn laakiin la sameeyo dowladaha hadda isteedada waxaan nahay dowladda keliya ugu sharciyada badan ugu booliska badan laakiin haddana waxaa moodaa in boolisigeenu uu yahay mid qurux badan oo la qaato la sameeyo laakiin aan lagu dhaqmin maaqan waxay tahay ma dareemi karo laakiin haddaa fiirisid hadda federaalka oo kale
wasaaradda dhalinyarada soomaaliyeed wax naga qaadatay waxay dhaheen anaga naga xigteen naga qaateen istada kale waa naga qaateen waa wax aad u qurux badan laakiin wuxuu u baahan yahay implementation in lagu sameeyo cidda implementation ku sameynaysa oo looga baahan yahay waa dhalinyarada inta badan because waxaa iyagaa iska leh mustaqbalkii berri waa dhaaftay arrintii waa isuu soo galay mustaqbalkii berri waa dhammaatay waa socon weyday waxaa loo baahan yahay mustaqbalkii maanta aan noqono kii biri noqono kii maanta noqono haddaan usoo noqdo su-aasha maxaa idinka qorshaysan annaga ka wasaarad ahaan xoogga waxaanu saarnaa dhalinyaradan waa noo siman yihiin horta gabadh iyo wiil annagoo ku dabaqaynaa siyaasadda dhalinyarada markaan qayb ahaan fiirno genderka qaybta genderka ay leeyihiin hadda gabar baa noo jirta waxa genderka sectionka genderka intaas inta badan waxay ka shaqeysaa arrimaha genderka GBV ka shaqeysaa xuquuqda dumarka ka shaqeysaa shaqaalaynta xafiiska HRM-ka la shaqeysaa bal gabadhii xafiiska lagu dulmiyey midii xoogaa maaragtay shaqo raadinaysa oo shaqadeeda lagu xiro wax kale lagu xiro kulli intaa way ka warhaysaa horta sectionka wuu shaqeeya genderka xoogaa waxaa mudaa inuu xoogaa kuwii kala dhaamo laakiin waxaan isdhihi lahaa weli waxba xoogana waxaansan dareemayaa anigu gabdhaha dhalinyarada ah ama guud ahaanba dhalinyarada oo dhan inay go-aanka iyagu ay leeyihiin haddii iyagu ay ka go-an tahay in qorshe loo sameeyo qorshe cad la yimaadaan waxay la tahay inaas ka dirteen loo sameyn qorshe waxaanse dhihi lahaa sida abay wasiiro sahla sheegtay qofka isaga ka timaadaa in horta qofku wax noqdo kabacdi qofka la wadi karo qof fadhiya lama kicin karo laakiin qof socdaa lasii sogooti kara la socodsiin karaa waxaa jira dalado dhalinyaro oo qayb ka tahay hadda daladan maanta ina martigelisay mudan gabdhaha waxaa ka mid ah degan baa ka mid ah ayaa soo saartay ururada dhalinyarada waxaa ku jira ururo gabdho ay leeyihiin oo keliya oo iyagu ismaamula ka shaqeeya arrimaha genderka ka shaqeeya arrimaha siyaasadda innaga mar kasta inaan dhahno siyaasadda ka qayman yihiin oo afka ah waa laga fiican yahay waxaa loo baahan yahay ficil aan samayno la xisaabtano dadka inoo jooga meelaha platformka oo siyaasadaha inoo jooga oo kaleeto hadda puntland waxaa lagu asaasay shan gabdhood maantana xabad bay maraysaa yaa innagana laka arkay haddaan dhihna war ma soconaysa waxaani lixdan lix bane baatiine shantii baa lagu asaasay maxaa joojiyey oo celiyey haddii lala hadli lahaa oo imaan lahayn meelaha yani ka go'da go-aamada ka go-an lahaayeen waxay artay inay saas ahaateen ugu dambeynta waxaan kusoo gudaanadayaa hadalkayga faadna noo soo daadiin doonta insha allah gabdhuhu waa lafdhabarka horta meelaan gabar joogin waxaa kala hagaagaan xaqiiqatan nin wax ma qaban karo laakiin waxaa loo baahan yahay inagu noqono isku tiirsada isku xirnaada is og nadwogyada ka wada shaqeeya mar kastana arrimaha dhalinyarada oo dumarka ah yaan ragkeen ugu soo dhicin aan markaan dhareer maqalno aan gabdho nagu soo dhiceen horta ereygaa bal markaan dhareer maqalno gabdho aan dhareerno inay gabdho jiraan hadda intaas inta badan shaqooyin baa lasoo dhijiya world bank oo kaleeto waxaan ku khasabnay qolyaha world bank u sarreeya markii toban qof imtixaan gasho in 3 gabdho noqoto la soo saaro way nagala qaateen waxaa la shaqaaleysiiyey 9 qof 30 gabdhay ahaayeen taasina waxay ku timid dadaal ku timid wasaaradda shaqada dhan sportka waxaad moodaa youth policy-ga ay wasaaraddu leedahay inay xoogga saarto dhalinyarada ay ku midaysan yihiin wiilasha sida mudan bayaan taas oo kale marka maadaama ay jiraan gabdho dhalinyaro ah oo ururo leh oo ka shaqeeya barnaamijyo badan sida hadda gabdhaha saxafiyiinta gabdhaha qareemada intaba ay jiraan marka doorka intaas leg xageebaad ku ilowdeen haddii aad ninku atiin wasaaradda isla markaana aad bolisiga aad ka dhisateen ay bolisiga wasaaraddana uu yahay dhammaan dhalinyarada ay ka midaysan yihiin tan kale aan rabo inaan weydiiyo wasiiradana waxa weeyaan maadaama ay jiraan gabdho awal ay ahaayeen dowladda puntland markii la aasaasayay waxaa lagu aasaasay sidaad hore usoo sheegteen 5 gabdhood maadaama 5 gabdhood hadda ay ka baxeen booskii hal gabar ay timid marka ma moodaa gaabka jirahay in qof walba uu ordayo titleka isaga markaas uu rabo qorshe intee leeg baa idinkaga aadan inaad hadda doorashooyinka imaan doono hadduu idinka lahay ka dhigo ama tii federaalka hadda fooda inagu soo haysa qorshe intee leeg baa idinkaga aadan ama aad diyaar ugu tihiin inaad garab ku siisaan cid allaali ciddii doonaysa inay siyaasadda ka qayb gasho dhanka haweenka waxaa lagu xirayaa su-aal ah gabadha ninkii qabay ama reerkay xididka lahayd waxa la leeyahay annaga optioninkeeni maahano reer kalaa taa gabdhuhu waa caqabada koobaad horta ugu horeyso gabdhaha hankoodana jebisay kana reebtay inay siyaasadda ka mid noqdaan marka wasaarad ahaanteena iyo gabdhahan wasiirada role modelskana aan ku dayano waxaan weydiin lahayn maydi ku jirtaa hadaf ah inaad gabdhihii dreamiskoodu waa inay siyaasadda ka qayb galaan intaad iskugu yeertaan
aad tiraahdaan annagaa idin siboodgaraynayna waddada saxdaana idin tusayna qofkii idinka hor yimaadana idinka leexin karna ma idinku jirtaa tan kale hadda waxaa dhiman agaasimayaashii oo weli dowladda soo magacaabin ma siboodgarayseen mise ma ku dhiirateen inaad raadisaan roolkii gabdhuhu ay ku qaadan lahaayeen agaasimayaasha qaybtooda tan kale waxaa jirta xisbiyadii la furayo midinku jira xisbi gabdhihiina siyaasiyiinta noogu jira aada abaabulaysaan say gabdhuhu idinku soo daydaan aad markaa dhihi karta anagu xisbi hebel baan haddaan gabdhahanay furayna say gabdhuhu idinku soo doortaan waayo gabar hadda gurigeedi joogta haddaad tirahdaan xisbi baan furayna waxba idinkama oga laakiin markaad timaadaan tirahdaan gabdha xisbi hebel baan furayna waa inaan training idin sii siino leadershipsku waa runtiin lama qofku kuma dhashay laakiin wuu bartaa marka ma idinku jirtaa hadafa inaa gabdhihii leaderships u diyaarisaan maadaama idinku boosishiinadeena noo joogtaan aad baa umahadsantihiin qayb ka mida waxaad moodaa inaynu horey uga soo jawaabnay tusaale ahaan arrinta dhiirigelinta oo kale inaad soo koobtaan oo waxa weeyaan waqtiga aad inooga faa'iidaysaan gabagabadii iyo talooyinkiina waa inoo dhiman tahay deeqo oo su-aasheedii ugu horreysay ayaan ku bilaabayaa si toosa idinkoo su-aasha u abaaraya markaan sameynayna youth policy-ga dhammaan waxaa laga sameeyay gobolada puntland oo dhan waxaana laga soo ururshay baahiyaha gabdhaha wiilal labadaba waa laga soo ururshay gabdhahana waa laga soo ururinaya baahiyaha loo qabaan wiilasha waa laga soo ururinayay isla markaasna saasaa lagu active gareeyay waxaa ku jira combound hore oo uga hadlay genderka ka hadlaya gabdhaha ah waxaa jira ururo dhalinyaro oo ah gabdho keliya for example wasaaraddu waxay sameysaa tababaro ku badhan leadershipka dhalinyarada markaan 9 gobol dhalinyaro daladood ama gobollo uga yeerano dad uga yeerano oo for example ururka dalada abyan oo kale boosaas oo kale abyan baa lahay ku midoobeen 9 qof oo shan qof laga casimo for example 2 gabdho ah iyadoo la rabo in lagu baro leadershipka iyo hogaaminta iyo waxa meesha laga hadlayo si wacyigooda kor loogu qaado marka siyaasadda dhalinyarada Puntland gabadh iyo wiil waa u siman yihiin isla markaasna gender bay qayb si leeyihiin iyadoo u siman yihiin badan gender qayb ay leeyihiin waana qorshaha ugu weyn ay gabdhaha la saarayo focuska in la soo saaro gabdho fiican oo abaabulan waa maasanta arrinta xisbiyada qorshe waxaa noo degsan ayaantii dhaweyd barnaamijka aan sameynaynay oo wada tashiga haweenka Puntland uu ahaa qorshaha nooga soo baxay waxaa ka mid ahaa xisbi kasta oo la sameynayo 5 qof ee ugu horeysa 2 inay gabdho noqoto waa qasab haddii ilaahay raali ka dhigo qorshahaas noo degan madaxweynaha u gudbina insha Allah waxaan rajeynayaa in qodobkaas la ansixiyo kaasaa noo yaal haddii ilaahay ma fiicna in anaga xisbi gooni u sameysano bulshadii baan ka nimanay rag iyo dumar waa 2 qof isku baahan yihiin arrinka gender macnihiisa waa lab iyo dhadig marka waa 2 qof waa la isku baahan yahay bini'aadamka ilaahay baa isku qaybiyay marka waa isku kama maarmano xisbi gooni ana nooma fiicno inaan dadka wax la qaybsano dadkana ka mid noqono iska banaanka iskama saareyno markaas xisbiyada soo socda haddii ilaahay raali ka dhigo waxaan qorsheynay in xisbi kasta oo la sameyn doono 5 qof ee ugu horeeya maybe inay gabadh noqoto gudoomiye ku-xigeen uu noqdo kulli waxaa anaga noo qorsheysan haddii ilaahay raali ka dhigo 5 qof ee ugu horeeya inay 2 gabdho noqdaan ama 3 xitaa inaan ka dhigi doono haddii ilaahay rimo marka hawsha waa socotaa arrimo badan qorshooyina noo yaal laakiin hal la helo gabdho diyaarsan hal la helo ay ka go'an tahay inay siyaasadda galaan agaasimayaasha waxaa ka jawaabaysa wasiiradda taa dhinaca agaasimayaasha haddii aan usoo laabto waxaa weeye saynu ka warqabno konton ku dhowaad weeye agaasimayaasha ama wasaaradaha ha ahaadaan ama hay-adaha madaxa bannaan hal gabadh kuma jirto hal gabadh bay noogu jirtay halkii gabadh waxaa weeye markii hadba waxaa weeye marba wasaarad sidii loogu tuurayay wasaaraddii u horreysay tagtay waa laga wareejiyey waxaa weeye wasiiraddii way isku dhaceen raggaba way isku dhacaan rag gacan isula tegay baa jira agaasimayaal iyo wasiiro ishuugii gabadha waxaa laga dhigay inay tahay maxay hayteenay waxdee stigma laynagaga dhigay raggu shaqaa la isku qabta dadka hadday wada shaqaynayaan way iskhilaafaan kabacdi gabadhii markay wasiiraddii waa laga wareejiyey sida xalka inta badan ay u dhacaan raggaba wasaaradahooda wasaarad kalea la geeyey wasaaraddii waa laga bedelay wasaarad kale marka nin wax soo raadsadaba waxaa la yidhahdaa yaa ugu nugul qofka ugu nugul waxay noqotay gabadhii in marba wasaarad booskeedii maaragtay marba meel loo wareejiyo aakhirkiina markii dambe banaankaa la dhigay oo iyadoo maxay hayteenay wasaaraddii weliba waa ka xumahay dee iyadoo tacsi ku jirtaba oo aabeedoo xanuunsanaya u tagtay aabaheed dhintay baan xitaa loo naxariisano booskeedii la qaatay intii ka dambeysana dowladda laguma soo darin arrin aada mucjiso oo naxariis darro ah bay ahayd kabacdi gabadha keliya noogu jirtay
marka waxa weeye kolley dowladeenan cusub hadda siyaasad baa haweenka uga dejisan tii hore oo xildhibaanada iyo qaabkaas waxba dee kumay lahayn laakiin golihii wasiiradan saad ka warqabtaan isku day badan baa la sameeyey oo gabdho badan nambar fiican gabdhihii sida lasoo sheegay xitaa gabdhahaba kasoo horjeestay gabdhihii qaar oo intay dowladda u tageen waxay yidhaahdeen kursigayga gabadh ma siin kartid marka caqabadahaasina waxyaaba dhacay bay ahaayeen gabdhihii intaasaa nambarka lagu soo daray laakiinse mid shaqada technicalka ah oo agaasimayaasha guud ama agaasimayaal waaxeedyada in gabdho badan oo ablaygareeya laynaga helo kolley isbedel wuu dhacayaa iyagana waa la bedeli doonaa marka gabdho badan haddaba waxaan idigu bushaarinaya inaad raadsataan gabdho badan laga helo siifiyadooda miiska ay geeyaan waxa weye qaabkayn u wax u raadino tii siyaasadda unbay la mid tahay gabdhuhu inay wax raadiyaan waxaan internationalka ama hay-adaha u qareema haweenka mar walba waxaad moodaa marka iyagu ay adkeeyaan ama waxa weeye dowladdu ku adkeeyaan sida hadday ahaan lahayd 30% women's quota oo federaalka ka dhacday fargelintay ku sameeyeen percentage fiican bay kaga guuleysteen barnaamijka World Bank anigu waa la socday marka dowladdan la shaqeynayay wasaaradda qorsheynta ka shaqeynayay oo shaqaale ka ahaa waxa weeye aad bay rol fiican bay ka qaateen iyagoo isla kaashanaya wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo dhalinyarada ciyaaruhuna rol fiican oo ay ku adkaysay maxay hayteen boardka gabadh baa waxay nooga mid ahayd committee-ga gabadh ka mid ahayd oo inoo fadhiday agaasimaha waxa weeye shaqada iyo shaqaalaha marka taas waa meesha miiska gabadhi kuu joogto mar walba xujadu waxa weeye gabdhaha representationka rabno waa taasoo meedhan gabadh haddee miiskii wax lagu go-aaminayo ay inoo joogto wax badan baa inoo hagaagaya level kastee tahay noocay doontaba ha ahaato hadday ahaato sida sumaya sheegaysay caafimaadkii waxbarashadii meel walba gabadh meerka inoo tagto ama ka dhex muuqato waxaynu weheleynaa marka madaxweyne sida cabdulaahi dili wuxuu ballan qaaday oo siyaasadiisana barkow ka ah in haweenka waxa weye rool fiican dowladdiisa shaqooyinka dhinaca hadday ahaan lahayd technicalka oo waxa weeye agaasimayaasha guud agaasima waaxidyada wax kastoo isaga ka gala dhinaciisa wasaaradda haweenku way inoo joogtayo advocacy inoo sameynaysa marka gabdho badan waa inay dhinacaas maaragtay la helo dhinaca xisbiyadan ku daraya iyadana maadaama xisbiya la sameynayo xisbiyada waa in gabdhuhu hadda door muuqda ay kasii qaataan waa ku celinaya marka horena waa sheegay tii aan marka hore jawaabtu tii hore ku xidhiidhsan tahay in la helo gabdhuhu ay xisbiyada golayaasha xisbiyada golaha sare golaha dhexe waxa weeye fulinta heer kasta ay ka muuqdaan oo waxa weeye roolkooda halka ay ka muuqato markaasna iyagoo xisbigiina ku jira dhinaca kalena gabdhihii issharaxayayo maxay local governmentka kasoo gelaya halkaana waxaan aaminsanahay inaynu helayno waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo markaa saxaafadda kusoo biiray xilli waxaa jirta keligay aan garowa dhan gabar ka hadli jiray oo aan isdhihi jiray tolow miyaad heli doontaa gabar kugula soo biirta saxaafadda baa jirtay puntland oo dhanna gabdhaha saxaafadda ka dhex muuqda ay aada u yaraayeen haddeer alxamdulilah waxa weeyaan gabdho badan baa saxaafadda ku jira laakiin caqabado fara badan oo sida sektarada kaleba ay caqabado uga jirto gabdhaha soo wajaha ayaa sababay in ay gabdhihii saxaafadda ku yaraadaan arrin yaroo 2017 markii aan barnaamijkan wiimi ikhtiraacaynay aniyo faadumo way iska reebtaa inta badan laakiin barnaamijka maxaa qeyb bay ka tahay assessment baan sameynaynay puntland oo dhan ah oo mediaha ku saabsan mediaha guud ahaan say u shaqeeyaan baanu maaragtay magacsinanay faadumo xogayaha guud ee maabay ahayd aniguna aase freelancer baan la shaqeynayay gobolada puntland oo dhan baan marnay waa markii ay noo caddaatay in haba yaraatee wax rool ah aanay gabdhuhu ku lahayn xarumaha warbaahintu ay ka shaqeeyaan waxaan weynay hal gabar oo maxaan idhahdaa agaasimaha waxaan weynay hal gabar oo go-aan gaari karta waxaan weynay hal gabar oo barnaamijkeeda si madax bannaan waxa weeyaan oo active usoo saarsan karta waxaan weynay tiradii maaragtay xagga matalaada inay gabdhihi aada uga hooseeyaan waana sababta nagu kaliftay in aanu sameyno meel gooniya oo iyaga lagu empower gareeyo hadda markaynu eegno gabdhaha way jiraan qaybo waxa weeye keligood intay kaameradooda qaataan inkastoo bulshadeenu ay wax khalada aaminsan yihiin oo markay arkaan gabar kaamero meelaha la ordeysa ay odhanayaan in waxa weeyaan laakiin xilligaa waa laga soo gudbay gabdhuhu haddeer way dhaamaan intii hore in badan bay ka fiican yihiin laakiin gabdhaha keliya ma aha guud ahaan meeriyaha puntland guud ahaan meeriyaha soomaaliya ayaa wuxuu u baahan yahay in la horumariyo in waxa weeyaan tiknolojiyad ba maanta shaqeysa waxa weeyaan social media maalinba waxbaa lagu soo daraa
qaabka wax duubidda iyo qaabka wax soo jeedinta iyo tviyada iyo qaabka wax dhidgarinta maalin kasta waxbaa lagu soo daraa waxa weeyaan inaga oo dhan dadkayga meediyaha ayaa u baahan in aan xirfadayda kordhino gaar ahaan gabdhaha xilligan waa ay fiican yihiin keligooda gabdho waxaa jira keligood intay warka soo duubtaan jarjara hagaagsada fiidiyowga samaysta haddana waxa weeye soo daaya oo warkoodii gala xilli baan la heli jirin marka insha allah waxaan rajaynayaa waxa weeyaan inay jiri doonaan gabdho badan oo saas oo kaleeta doorkooda keligood qaata shaqadooda keligood lagu aamino barnaamijyada muhiimka ah waa ku celinayaa waxa weeyaan gabdhuhu door kuma laha ama doodaha waaweyn ha noqoto ama siyaasadaha iyo maaragtay barnaamijyada looga hadlo ha noqoto barnaamij micno leh gabdhaha saxaafaddu inta badan waxaa lagu ilaaway fanka iyo salaamaha iyo musiga iyo maaragtay ciyaalada barnaamijka caruurta inkastoo barnaamij fiican yahay laakiin haddana waxaan u baahannahay oo uu doorka iyagu yacni uu fishinka iyagu uu yahay in la helo gabar dood kasta samayn karta oo warbaahineed oo waxa weeye iyadoo u madax bannaan haweenka casuman karta oo siyaasiga casuman karta oo barnaamijkeeda keliga tirjaran karta oo waxa weeye markii loo baahdo barnaamijyada GBV-ga laga hadlayo si gooniya loo ribood garaya dadka dhibaatada iyo tacadigu gaaray oo mahadhooyinku gaaray si gooniya loo ribood garaya gabdha keligood intay sameeyaan barnaamijyada caynkaasa soo saarsan kara waxa weeye hay-adaha kala shaqayn kara tviyadooda iyo xarumahoodii maaragtay ku shaqaysan kara social mediahana active ka noqda oo markii wardhaco aan laga sugnin maxaa la yidhahdaa meel gooniyahe gabdhuhu ay maaragtay akoonadooda yacni si official ah iyagoo aan sharciga dhaafaynin waayo saxaafaddu waxay leedahay qaanuun iyo xeer lagu dhaqmo iyadoo xeerkaa la ilaalinayo oo wiil iyo gabarba ay mas-uuliyadda saaran tahay waxaan rajaynaynaa meelaha ugu kalsoonida badan inay noqdaan gabdhuhu oo wararka soo daaya insha allahu tacaala marka geenyoy processku waa u socdaa insha allah xilli buu ahaa xilligan xilli waxaan rajaynaynaa aan sii horumaran inaan nahay sidanna waa sii dhaami doonaa haddii la yidhahdo arrinka reebka iyo arrinkan kufsiga iyo waa arrin masiibo waa arrin xun waa arrin masiibo ah waana dhaqan aada u xun runtii aad waan rajaynaynaa in waxaan maadaama dad islaana aan nahay aan dhaqan fiican leenahay diin leenahay waxaan la samaynayna uu yahay wax dadnimada iyo sharafteena wax u dhimaya waxaan rajaynayaa waxaas dadka samaynaya inay ka waantoobaan annaga as wasaarad ahaan aad baan ugu dadaalnaa dadka dembiga geystay in la ciqaabo tabar badan baan ku bixinaa waa ku dadaalnaa inay ciqaabtooda helaan in sharciga la mariyo dhibanaha dhibka loo geystana inuu helo xanaanadii uu xaqa u lahaa oo dhinac kasta xanaano oo keliya ma ahayn dhaqaale in la siiya ma moral ahaan caafimaad ahaan waxyaalo badan oo runtii aan u qabana wasaaraddeena aan aad iyo aad hadda soo koobi karin runtii marka arrinkan reebka waa arrin xun ilaahay subxaana watacaala ha naga soo gaaro wax kasta dadka waxay yidhahan waa arrin mashruuca laakiin anu waxay la tahay waa dhaqan xun dhaqan awal jiri jiray haddana soo caanbaxay sababtoo ah dee dadka hadda wuu iska warhayaa ceebta ma qarsoomaysa awal ceebta waa iska qarsoomi jirtay waxyaala waa la iska qarsan jiray maanta dadkii social mediaga jirto indhihii baa noo furan dhib yaroo dhaca waa ogaaneynaa marka waxyaalo badanoo waxaa soo dadkiiba hadda diyaarsan inay ka hortagaan waxyaalahan oo kale saasay usoo caanbaxaysaa laakiin awal way jiri jirtay insha allah wayna istaagi doontaa marka aad baan idin salaamayaa tan qabiilada sucaad adii ka jawaab baltaas su-aashii fartuun baan u malaynayaa inay ahayd su-aasha qofka gabdhaha gabadh baa su-aasha ayna weydiisay in gabdhaha waxaa weeye marka ay wax raadiyaan in lagu istigmaa lagu dhejiyo la yirahdo gabadhu reer kale kasoo jeeda taas waxaan aaminsanahay inay marmarsiiyo tahay inaynu ka yeelana maaha waxa weeye ninkuba waxaan waxa weeye genderkan ilaahay baa waxaan isugu ka talagalay hooyo iyo aab baynu ka dhex abuuranay hooyo waa qabiil aabe waa qabiil inagina qabiilka aabbaha si kasteen u raacno waxa weeye waxaan waa dhaqan ma aha wax jira iyagana ka dhab ma aha waxa weeye waxay doonayaan xaaladda markaa taagan inay kugu waxyaabaha ay ku adeegsanayaan kaaga saaraan ama marka taas inaan loo dhagan nuglaan oo la ignoor gareeyo baan aaminsanahay waayo wax loo jiga waa maba ahaba ninkii waxa weeye marka isaga gabadh qabiil kale ah markuu guursanayo isba reerkii buu matelayaa iyaguba kuma shaqeeyaan maxaa inaga laynoogu istigma laynoogaga dhigaya marka taas waxaan aaminsanahay ama ku dhiirigay inaan laga yeelin waxana ay tahay waxyaabaha laynoo hubka laynoo adeegsado waxaan rabaa wax ka yar daqiiqad qof kastoo idinka mid ah gabdho dhalinyaro ayaa halkan jooga in badan oo kale ayaa idin daawanaysa oo fariintiinu ay gaari doontaa qof walba muxuu kaga tegayaa muxuu ku dhiirigelinayaa maxaa tala ah wax ka yar daqiiqad fadlan
gabdhaha dhalinyarada waxaa kula talin lahaa maxaa la qof walbo adig isoo isdhisa walaashana taageer ana badanaa waxaana lagu sheegay in anaga daa'iman anaga isfaquuqno dhexdeena laakiin saa meesha waa ujeedin baa women stand for women taanagoo ku dhaqmeena istaageer idinkan isdhisa insha allahu tacaala hankeena waa gaarina insha allah taala waana wada guuleysanaynaa. waxay tahay ganaanadkayga iyo dardaarankaygu aan isku duubnaano codkana ha noqdo hal mid meel gaari ka maqasta meel gaari ka doona insha allah. horta aniga waxaan aaminsanahay wax la yidhaha bini-aadnimo horta gabadha waa inay aaminta inay bini-aadan tahay kabacdi qofka markuu bini-aadannimo aaminsan yahay inuu bini-aadan yahay oo bini-aadan wax gala wax guda karti leh marka hore taas aan kula dardaarmay inaad self-esteemkiina kor u qaadin isku kalsoonaatiin maxay tahay naftaada aamintay hankaagana uu sarreeyo hanka aniga waa aaminsanahay qofka markuu han leeyahay inuu cirka soo taaban karo marka hankiinaa sarreeyo. hal dardaaran baan anigu rabaa inaan siiyo wixii points muhiimka ahaa waynu kasoo hadalnay discussionka. waxaan rabaa inaan idiin sameeyo ballanqaad ah wasaaradda haweenka waxa weeye wasaaraddii nagu matalaysay dhinaca haweenka siyaasadda gabdhaheena inta kaloo golaha ku jirtana waxa weeye platformkaas aanu ku jiraa wasaaradda garab baan isu nahay haddana waa wada shaqeynaa insha allah inaan wada shaqeyn insha allahna waa wada shaqeyn doonaa wixii kale oo baahida haweenka inaanu meel uga soo wada jeesano marka aniga ka sucaad ahaan wasaaraddeeda anoo wasaarad kala joogo aan haweenka wasaaraddeeda joogin albaabkaygu wuu idiin furan yahay gabdhaha dhalinyarada ah gabdhaha doonaya inaan sheekaysano dhiirigeliyo hormuud u noqdo wax la raadiyo gabdhaha wax doonaya inay raadiyaan intaan ka sabood garayn karo ma garantii garayn karo laakiinse wixii aad rabtaan oo dowladda aad uga baahan tihiin saboodkeeda diyaar baan markasta idinla ahay marka insha allah inaynu soo xidhiirino isa soo raadino waxa weeye inaan ana idinla dadaalo weeye ballanqaadkan idiin sameynaya. waxaan kula dardaarmayaa gabar kasta oo dhalinyaro ah oo soomaaliyeed gaar ahaan gabar kasta oo reer puntland ah haddii aad ka leedahay siyaasadda han haddii aad bulshada dhexdeeda ka leedahay han haddii aad doonaysid inaad meel gaartid kow horta aqoontaada soo dhis waxbaro markii aad wax soo baratid waxa weye qoyskii kasoo bilow hogaamiyenimadu waxay u baahan tahay in laga soo bilaabo meesha ugu hooseysa hogaamiyenimadu in yacni jaranjarta meesha ugu hooseysa adoo taagan meesha ugu sarreysa haddaad istiraadid hal mar tiigso waad jabaysaa waxa weeyaan bulshada dhexdeeda kasoo bilaaba maxaa la yidhahdaa wixii aad qabanaysaan waxqabadkii inuu bulshada dhexdeeda ha ka muuqdo yacni anigu qodob waxaa jira aan aaminsanahay waa iska hadal badan iga raali hada hadii aan xoogaa hadalka dheereeyo waxa weeyaan qofku marka uu bulshada kasoo dhex baxo oo doorkii bulshada ka saarna uu soo guto markaasuu wiil iyo gabarba waxa usoo bixi karaa usoo gudbi karaa meeshii sare marka waxaan leenahay aan wax kasta hoos kasoo bilowno hankeenu ha sarreeyo gabdhaha meediyaha waxaa kula dardaarmayaa sector waxaad ku jirtaan aada u muhiima waxa weeyaan waa tuul weyn oo wax lagu bedelo warbaahintu insha allahu tacaala anigu mar kastaba waxaan ballan qaadayaa idinka oo maaragtay de inagu aan la kaashanayna inaan intii karaankayga ah aan tuulkaas weyn wixii aan idinku tari karo aan idinku taro laakiin aynu u istaagno in aynu haweenka kale garabsano haweenka kale oo siyaasadda ku jira ama bulshada ku jirana waxaan leenahay war hana cayrininoo waxa weeye dhanka kale hanagu magacaysiinine annagana noo qareema si aan waxa weeye idinkana idinku qareeno marka inagoo dhan baan isku xidhnaano insha allahu tacaala. waa ay mahadsan tahay nasro arrintii panelku intaas ayay inoo ka eg tahay hase yeeshee barnaamijkeenu welima uusan dhammaan waxaan rabaa inaan si mug leh dhammaantiin idinkugu mahadceliyo anigoo ka bilaabaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo horumarinta arrimaha qoyska ee puntland marwe zahre cabdi xirsi wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista hawada iyo karoomada puntland sucaad saalax iyo sidoo kale nasro cabdirasaaq axmed oo ah madaxda ururka ama hal abuurka gabdhaha warbaahinta ee women in media initiative ustaado doctorayso sumaye shoole oo ka mida aasaasayaasha
Somali Women Leaders Network iyo sidoo kale agaasima deeqa oo ina kala joogtaa wasaaradda dhalinyarada shaqada iyo shaqaalaha iyo ciyaaraha dhammaantiin aad baad ugu mahadsantihiin waqtigiina iyo contributionkii fiicnaa ee aad samayseen